waxaa milgo iyo sharaf weyn ii ah inaan maanta ka hadlo shirka STEM-ka Soomaaliya anigoo matalaya shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo ku koobanayn shirkadda isgaarsiin balse Hormuud u ah horumarinta sayniska, tiknoolajiyadda, engineering-ka iyo xisaabaadka. Hormuud waxay sanadkii 8aad si xiriir ah u taabgelinaysaa shirka STEM-ka Soomaaliya oo ay soo agaasimeen akademiyada jaamacadda farsamada ee Hano. Taabgelintan joogtada ah waxay marag iyo marqaato u tahay sida ay nooga go'an tahay taageeridda shirarka cilmi baarista ee lagu horumarinayo STEM-ka dalka. Shirkadda Hormuud waxay rumaysan tahay in horumarinta STEM-ku ay tahay mas'uuliyad wadareed gundhig u ah horumarka qaranka. Sidaa darteed waxaan garwaaqsanay mudnaanta ay leedahay isku xirka waxbarashada iyo suuqa shaqada ee dalkeena si aqoonta fasalada lagu dhigo loogu bedelo xal wax ku ool ah oo u adeega bulshada Soomaaliyeed. Waxaana hirgelinay jaamacadda Hormuud oo si gaar ah diiradda u saarta culumta STEM-ka si loo soo saaro injineero, cilmi baarayaal, hal abuurayaal oo u diyaarsan inay ka jawaabaan baahida casriga ah ee suuqa shaqada. Waxaa saldhig u ah howlaha dadaalada STEM-ka dalka. Waxaan kaalin hogaamineed ka qaadanaa horumarinta isgaarsiinta, maaliyadda iyo tiknoolajiyadda Soomaaliya oo lafdhabar u ah hirgelinta iyo hanaqaadka STEM-ka. Laga bilaabo jaamacadaha, xarumaha cilmi baarista, ganacsiyada ilaa hay'adaha dowladda iyo kuwa aan dowliga ahayn. Waxaan siinaa xalal iyo adeegyo kaabayaal u ah jiritaankooda oo ku dhisan tiknoolajiyadda casriga ah. Dhanka kale, hay'adda Hormuud Salaam Foundation waxay ku howlan tahay dadaallo lagu horumarinayo sayniska, tiknoolajiyadda, injineeriyadda iyo xisaabaadka. Sanad walba hay'addu waxay deeqo waxbarasho oo culumta STEM-ka la xiriirta ku tartansiisaa arday ka soo aflaxay dugsiyada sare ee dalka. Sanadkan 2025 ee sii dhammaanaya, hay'adda Hormuud Salaam Foundation, dugsiga farsamada gacanta ee Buruuj iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa iska kaashaday fulinta barnaamijka shaqo abuurka ee mashruuca Baxnaano. Waxaana ka faa'iidaystay 1,000 dhalinyaro Soomaali ah oo isugu jira 600 oo gabdhood iyo 400 oo wiil oo Soomaaliyeed, kuwaasoo lagu tababaray xirfadda STEM-ka. Hay'adda oo kaashanaysa shirkadda Tabaarag ICT iyo shabakadda Somaliland waxay sidoo kale taabgelisay mashruuca Bile oo sanadkii hore lagu tababaray 150 arday oo culumta kombiyuutarka, tiknoolajiyadda ka barata jaamacadaha dalka. Ardaydan oo loo carbiyay inay ka jawaabaan baahiyaha suuqa shaqada. Waxaa lagu tababaray diyaarinta xalal tiknoolajiyeed iyo adeegyo digital ah. Ugu dambeyntii waxaan halkan fariin u dirayaa dhalinyarada Soomaaliyeed. Dhalinyaradu waa mustaqbalka Soomaaliyeed. Waxay u baahan yihiin in xirfadaha STEM-ka iyo tiknoolajiyadda casriga ah ay si qoto dheer uga faa'iidaystaan. Jaamacad wax laga barto kaliya ama bachelor degree la qaato ama master la qaato ama PhD la qaato, suuqa shaqada markaan wixii ka dambeeyo waxaan isleeyahay wax badan kama goy doonaan ilaa qofku uu xirfad iyo skill yeesho. Marka dhalinyarada waxaan ku baraarujin lahayn in xirfadda ama skill-ka ay awoodooda oo dhan isku geeyaan mustaqbalka dalkana aan sidaas uga wada faa'iidaysano insha Allah tacaala. Hormuud waxay mar walba diyaar u tahay iyo saaxiibadeeda iyo gruubkaba inay si wada jir ah qayb weyn oo mugle oo miisaan looga ciyaaraan STEM-ka dalka. Ugu dambeyn waxaan bogaadinayaa Dr. Sacdiya oo runtii dadaal badan iyo dhabar adeeg gelisay in shirkan uu qabsoomo. Suuqa farsamada dalkana wax badan ku soo kordhisay. Ka Hormuud ahaan garab weyn ayaan u nahay. Mar walbana waa taageernaa shirarka noocan oo kalena inaan dhiirigelin oo taageerno sharaf ay noo tahay. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. shirkan guul ayaan u rajeynaa.
مستقبل كده لنا الصوماليين قروح يهرمر يشرف يا ورجينا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.